kasta ayaa naga dhaxeeya tolnimada naga dhaxaysa dhiiga naga dhaxeeya waxa weeye wanaag iyo sharaf iyo karaama u haynaa meel kasta ay joogaan Abbas Madani ma jeerteena ma nacba Puntland ma nacba oo Puntland waxa weeye sabab ku nacma jirto tolkeena sabab ku naco absolutely ma jirto waa tolkay weeye minba tolkay naca minba garabkiisa midig naca minba gacantiisa midig naca waa may weeye bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal meel kasta waad iga dhageysanaysaan halkani waa warbaahinta platformada kala duwan aan ku leeyahay media Twitterka YouTubeka Facebooka TikToka meel walba aad iga dhageysanaysaan halkani waa Abbas Madani soo dhawaada muuqaalkan share gareeya waxa rabaa arrimo xasaasi ah kaga warramo wareysiga uu bixiyay siyaasiga weyn Maxamuud Shido oo kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee reer Puntland wareysigaas oo xilliga la bixiyay iyo arrimaha laga hadlay ay tahay arrimo ku haboon marxaladda waqtiga lagu jiro siyaasi Maxamuud Shido wareysigiisa aniga waliba si gaar ah igu marxaati furay muuqaalkii ka horeeyay aan kaga hadlayay dani dibdaabiyada ku wado dowlad goboleedka SSC Khaatumo qodob horta waa qodobkaas waa faahfaahinaya caawo waana la tuhmeeyo tolkay waa tuhmay waana istuhu saaraya caawo arinta labaad aan ka hadli doono waxa weeye warqadda ay Gayla Media baahisay ay ku sheegtay in la magacaabay Faarax Aydiid oo sirdoon loo magacaabay warqadaana waa ka daba tagay wixii xaqiiqo oo ka jirana waa ka warbixin doona insha Allah qodobka ugu dambeeya xildhibaan Maxamed Cabiib wad garanaysaan oo gada boorsi ahaa nimanka ay sare u shaqeyn jiray ninkaas isbitaalka Faransiisku yaala xogtiisa raadi waa la sumeeyay taana xog baan idinka hayaa insha Allah taala fadlan isgaarsiiya meel dheer ka tuura ugu horeen waxa la yiri beenawaas baa la yiri wuxuu marxaati ka dhigtaa baa la yiri nin dhintay iyo nin fog ilaahay fadligii waa dhageysatay siyaasi Maxamuud Shido habeen hore waxaan ka hadlay habeen muuqaalka horeeyay dani inuu ka shaqeynayo dibindaabiyada SSC Khaatumo inuu gacmaha kula shiro SSC Khaatumo inuu waxyaabo weyn ka shaqeynayo Maxamuud Shido wareysiga wuxuu bixiyay 3 maalmood ka hor markaan muuqaalka duubay ka hor wareysigiisa wareysi duwan baa intaan sheegay ayuu ii marxaati furay anigu inaan Puntland iska maagay inaan siyaasiin wax weeye dani maagay dadku ay haysaa maaha dani waxa uu ka shaqeynayo waa wax aan dani ugu jirin reer Puntland iyo reer SSC Khaatumo iyo ummadda Soomaaliyeed siyaasiga Maxamuud Shido horta waa ku mahadsan aad baan ugu mahad celinayaa wareysiga xogaalnimada leh ee uu bixiyay ee uu kaga warramay guud ahaan Soomaaliya Puntland iyo SSC Khaatumo ninka cid uga warron dani Maxamuud Shido ma jirto waa ninkii keenay weey waa ninkii isagoo hadii la kuuriyay qol ku xiran waxa weeye madaxweyne ka dhigay weey waxaan taa daliil kuwa muuqaalkana daawanaysid waa Saciid Cabdilaahi Dani oo markaa madaxweyne noqday waa 2019 waa 8 sano wareey ninka uu salaamayo waa Maxamuud Shido weey markaa Maxamuud Shido madaxweyne ahaa oo deesaga keenay Soomaa cid ka badisana ma jirto Maxamuud baa markaa inoo warramay waa ku mahad celinaya xogaalnimada la jeclada ee uu Khaatumo iyo SSC Khaatumo iyo Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed buu ka qabo Maxamuud Shido waa uga mahad celinaya wuxuu marxaati furay Puntland 3 jeerba in casuumaad loo diray 3 jeer buu diiday waa 2 jeer madaxweyne fardhiyo casuumay iyo mar waxa weeye hadii la kor guddi waxa weeye Khaatumo iyo Puntland uu madaxweyne fardhiyo magacaabay intaaba ka muusho jawaab wuxuu siyaasi Maxamuud Shido si cad u sheegay in Puntland siyaasiyiinta Puntland ee gaar ahaan kuwa midiyada daabka hadda ay dani inay Khaatumo uga shaqeynayaan si negative ah oo ay gacmeen ku hayaan waa garan kartaan eragaas waxa socdana waa aragtaan horta Maxamuud Shido ay marxaati furo dadka reer SSC Khaatumo ay ogaadaan midna in la kala saaraa fiican tolkay ma jeerteen Maxamed Harti majority ma group gooni oo magaca Maxamed Harti qaata jirta oo hadii dani la dhaliilo u haysna ma jeerteen la dhaliilay war ma jeerteen waan wada dhalanay waa tolkayagu waxa weeye wax kasta ayaa naga dhaxeeya tolnimada naga dhaxaysa dhiiga naga dhaxeeya waxa weeye wanaag iyo sharaf iyo karaama u haynaa meel kasta ay joogaan hada fiiri hadii heelo u baahdaan garabkoodana hadaan heelo u baahanayna garabkayga waay leaderska Puntland markaa gacanta ku haya ayaa wuxuu sameeyaa narrative buu abuuraa oo dadka rabaan inuu ku kacsado soo dadka kale waxa weeye uga horkeeno Abbas Madani ma jeerteena ma nacba Puntland ma nacba oo Puntland waxa weeye sabab ku nacma jirto tolkayna sabab ku naco absolutely ma jirto waa tolkay weeye minba tolkay naca
من نبى قرب كيس ميديك نعه من نبى قاعد سميدك نعه ومايوي مركا وحن كهذا حوي ورسياسي حنا نقول أحكيها أي دتك كلا إردينية أي كلا فوجينية سوى تشرانس كي قبنا ما أنت فور إكزامبل مدحوين عبد القادر رحمه الله عليه في الري هدو كشقين دي من داوي بلان نيكا ugu horeeyay soo farsanay ka hadlay waa naga way khalas kuma raacno waynu ka daaban leena gacmahan qabanayna wax harti lid ku ah oo daaro lid ku ah oo Soomaali lid ku hadu sameeyay ay abkare Puntland waa cadeeyeen siyaasiyiintii elite-kii Puntland waa cadeeyeen si cad oo u sheegeen maxamuud shida u dambeeyay ummad Soomaaliyeed dhan u tusa dan wuxuu ka shaqeynaya dib daabiyo mid hartiyeed horta midna ogaado arinta harti waa dhalasho waa buda gaar oo toban way حوي عد قونينا مقع هرتي ددوشو لو حوي لو ما صاري كرو هرتي وخايب وي ورق ولا طوننا ولا لا وي عد كلا كحسن كرتنا ما جرتو waxaa jira koox xaaraana oo waslad xaaraana D5na ku hartina ku Puntlandna ku oo leeyahay Puntland virus ma Puntland virus tibala baa laakiin ma waa Puntland virus way oo dani samaystay oo dadka in caloosha wax la isugu geliyo ka shaqeynaya سؤال نسينا ما له نبى نقول لي لاس عنو أنت يا هبين كده كهذي يكان يماشين دتك أقول بدنا أبوري بوبوني اللي قد أم حارجة يتي قرآن وبسيدة إثيوبيا إنك كده رأي اللي هلاس عنو بنين إثيوبيا اللي قدري بدلان فارس بيعين يكون شباب أرجع صدق سلام ويسكاشنين ها حرير توصل إليه دتك اسمك ولا ما كش غنيان ملايا عموس كرا وما يوي مركا حلا كلا صاروا شعبك ولا لها يا حراشة شريتان كخاطبة تايرسن وقتك يشودك بدنجلي يجروبك وصلت حاراتها يتكون شرتان يبلان فارس يومد هذا كلا صار حدا نقولنا ما تشيرتين خاطبة كسور شيء ما تشرت قبيلين شعب البلدان وخاطبة وشريتان كدولة النمط إس خاطبة كسور شيء ما تشرتوا بقول كي بس عشان يستعال وتجرسين مركا لجربه جروبك وصلت حاراتها الدنيا سويستي كيرا مركا الدنيا من دفاعية دو الدنيا من تاجيرية دوانين كنت تاجيرية حد جذب كي وحيابك شقارين واحد بدن بنا نوجه والميديا هو اللي كشيء حوجا الله واحد الدنيا سمية من وجه واحد كوها ولية من وجه واحد حد دبجل كده الحياة من وجه ورانو حوجا البانع حيابها قارن مركز على الميديا كهذا وقت يوايها أي واحد كستأجره حوادي اللي كل لو أركض دونا سياسيين تهرير بنتلان جارهان رير نقاليد وحلي ورابح عيالك اسمه أرجو بس اللوكل شيكي إن بدن بين أبورة الاسمية أما اللوكل فوقين يو أما جار لوسو يو وحلات حد وين أرجني عد أقول بدن هلجن كديح تلفيريو وحوي لف دبر طوه هنا وياهاي أنا حسوس سلطان جراس الله بركة اسمكي وري كل يردي لو بقول ويل بانو باهنا هاي مسك كده عيبوها سلطان هدي لكو جراس اسمه أنا احترام كبدن هاي وي هذا فيري وناج إشراف يا كرام أنا وهاي مركا سو حال دون جروب جونية ووصلت حرام وإنساقي إن لدري إن لا شقية ودني سمايستي مركا سنو حكود دوني مجناسة كراسة حمر إساق أنا حلو هذا فيري كراسة عد أقول بدن خاتم عيدا يدور لا شقيسة يا دغالها كبحي وبدلان فارس ويا دغالها كبحي ninkan iyo doow waan garanaya isagu doonayo waa in isaaqa weey xabad baa naga dhaxaysa isla ay bixi maayo laakiin ninka dani mushaarka siiyo waan ogahay meelaha loo soo mariyaan garanaya cidda wax weey dhaqaalaha siisan garanaya narrative wasabada ugu daran garanaya waxay ka shaqeeyaan mangar dadka harti iyo daarood ma kala kaxin karaan runtii xaqiiqada ninkii ugu nacayna isaga u taala harabana ku soo gabagabay qodobka ku dhaafo siyaasi maxamuud shide nin dani ka badiyay ma jirto arintaa uu ku hadlay waa xadiis weeye waa ku bogaadinaya bayaaminta dhagaraha ninkaasi ku hawlan yahay waxyaabaha uu maxamuud shide siyaasiga weyn uu ka hadlayna ficladeeda waynu aragnaa laakiin baaris baa weli socota baaristan uu deyn doona insha Allah taala taasina waa qodob weeye arintan ka hadlay waxa weeye waraaq baa soo baxday oo Geyland oo garanaysan wiilkii wasiirka xigeenka aabihi lagu qanciyay ee dani u shaqeeya waraaq buu baahiyay xogana waa sheegay dilkii dadka reelaas oo dilka ogeynba ayuu xoga sheegay baabalka before inta la dilin baa laga qaaday ee halkaas lagu dilay oo taleefankiisa laga sii qaatay waxaan idinku bashaareynay reer is qaatmo horta kiiskaas meel fiican ba maraya dhawaana wala baahin doonaa cid ku lug lahayd
حاسيدي حقيقينيا وراقدا إني تا وراق فيغا دور أرمون ويدي وكلا قاضية تكو وراقدا تاريخ دا كو قران تاريخ إثيوبيا معها لما كون شيء لما تبع لو قران إثيوبيا نسيا وما شقيسو تتوصل كده بس تاريخ دا كلا أدونك تاسو قضب وفارت كواد أريت لبعض waxay ku qoreen muwaadin teer waxa weey Ethiopiana hada fiiri ayaa loo magacaabay xilka noocaas luqadda loo adeegsanayo luqadda Ingiriisiga Ethiopiana luqadda Ingiriisiga kuma qorto arimaha localkeeda niman badan diblomaasiyiin la xiriiray verification ban waxa ku sameeyay waraaqda arinta saddexaad shaabada number baa ku qoran meesha waraaqda laga saaran waa Puntland weeye Puntland meel kamid ayaa laga saaray xafiis Puntland kamid ayaa laga saaray hoosta wata waraaqda ku qoran taasna waa taa weeye ninkana sida lagu sheegay ma aha waxa lagu sheegay shaqada uu shaqeyn jiray ma aha waa fake weeye hadaba waraaqdan waxa qoray cidii dilkan ka dambeysay baa qortay laamaha amaanka ka hor dhici maayo baarista wanaagsan ay hayaan ama ay wadaan cidii soo dhigtay marka ninkii jiray muxuu yiri sheega ma dhaafto ninkii keenay waraaqdaas baa cadeyn doona ilaahay baana fashilinaya insha Allah taala soo far inta haddaan ogahayna meel fiican baaristu maraysa marka taasna intaas ku dhaafaya lama amaanka ka hor dhici maayo arinta kale nin maxamed abiib la yiraahdo oo horgalahaayo nimanka gada bursi ka soo jeeda oo maalmahan si fiican wada garanaysa ninkii waa la sameeyay isbitaal la yiraahdo American oo ku yaala Faransiiska ayuu ninkaas yaala xog badan ma raadiyay marka waxa la xiriiray isbitaalka iyo dad badan oo ka dhow waxa la sheegay 4 bilood iyo 3 bilood ugu dambeeyay ninkaas xaaladiisa inuu xanuunsanayay Djibouti yaalay markii dambe Faransiiska loo soo gudbiyay arimaha sumeynta ugu ma in hargeysa qof lagu sumeeyo waxa la ogaa ninkii xildhibaanka ahaa ee la oran jiray xildhibaan Maxamed Bulqas wad garanaysaa ninka warsan galiyo ayaa ninkii oran jiray markii Morgan la caayay yiri ana saqiir Morgan miiska garaacay 2 bilood buu ka dambeeyay waa la sameeyay nin kasta oo xiniyeele oo ka duwan beesha Isaaq oo lagu arko inuu xiniyeele wax iska elinayo ninka naag baa loo adeegsadaa ama waa la sameeyaa ama cuntada wax loogu daraa ama naag baa loo adeegsadaa waxa la xasuusanaa inay sidoo kale ay sameeyeen Professor Ali Khaliif Galeen madaxweynihii hore Khaatimo in lagu sameeyay Hargeysa suntiisina markii la sameeyay in waxa weey la isdaafiyay oo jijiga la geeyay 20 bari buu jijiga joogay markii xanuun ku soo booday ninkaasna waa la socotaan suntiisi waa official oo yartaasina xaqiiq weey waxaan jeclaan lahaa kuwa ugu xun ee horgalada ah ee iyaga u shaqeynay sameeyaan laakiin ma sameeyaan cidii anti ku ah oo ay isleeyihiin waxbuu cad buu goosanaya ama toosh buu ku soo ifinay ay sameeyaan waana waxay caan ku yihiin nimankani naagaha adeegsadaan cuntada wax kugu darayaan qofkii aamina kuwa hadda Hargeysa jooga kullu wada sameeyaan raggii horgalada ah ee 1991 ilaa iyo waxa weeye 10 sano ugu dambeeyay la joogay hal nin kama soo laaban kullu wada sameeyeen tusaale kale dhulbaantaha marka la fiiriyo raggii u tagay waxa lagu qiyaasaa 30 ilaa 33 meelahaas lagu qiyaasay 33 hal qof kama soo laaban kullu waa sameeyeen nin kasto xiniyeele naag baa loo adeegsanayaa dhadha sunba lagu daray marka kuwa hadda joogana waa mid socda ha ogaadaan yana waa la sameeynaya ama qaar baa hadda la sameeyay waa dhici karto suntii wali ku jirta iyo dheydkii moogta waqtigii aan wali gaarin anyway ninka Maxamed Abiib isbitaalkaas yaala American isbitaalka la yiraahdo Faransiiska waa la sameeyay ninkana waxa lagu haystaa way hadalka cadaa dhiiranaantii iyo sida cadeed u hadli jiray iyo nin cadkiisa goosto inuu ahaa dadkiisana u hadla intaas ayaan ku soo gabagabeynaya ninkii aaminay Isaaq u taga taha sumeeyaan ninkii aaminay Isaaq u taga